madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay xubno ka mid ah maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xeer madaxweyne LR 29 Agoosto 2020 ku magacaabay xubno ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus. Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 8 faqradiisa 19 markuu arkay qodobka 87 ee dastuurka dowladda Puntland markuu arkay tala soo jeedinta gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland wuxuu xeeriyay waxa Cabdiraxmaan Ciise Xuseen loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Nugaal iyo Sool. Waxa dhamme Siciid Xirsi Ibraahim loo magacaabay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Nugaal iyo Sool. Waxa gaashaan la dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Nugaal iyo Sool. Waxa gaashaan le Axmed Jaamac Maxamed loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Nugaal iyo Sool. Waxa gaashaan le loo magacaabay Siciid Aadan Siciid loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Nugaal iyo Sool. Waxa gaashaan la sare Cabdullaahi Cabdi Shire loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Mudug iyo Cayn. Waxa dhamme Cawil Warsame Maxamed loo magacaabay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Mudug iyo Cayn. Waxa dhamme Cabdiweli Maxamuud Maxamed loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Mudug iyo Cayn. Waxa gaashaan dhexe loo magacaabay Cabdi Faarax Cali loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Mudug iyo Cayn. Waxa gaashaan la dhexe loo magacaabay Ibraahim Bile Maxamed loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Bari Sanaag Highland Karkaar iyo Gardafuul. Waxa dhamme Maxamed Xuseen Maxamed loo magacaabay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Bari Sanaag Highland Karkaar iyo Gardafuul. Waxa dhamme Cali Ibraahim Cismaan loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Bari Sanaag Highland Karkaar iyo Gardafuul. Waxa gaashaan la dhexe Maxamed Cabdi Nuur loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolka Bari Sanaag Highland Karkaar iyo Gardafuul. Wuxuu dhaqangalayaa markuu saxiixo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni. Fanax Maxamed Yuusuf Fanax Fantastic Dalsan TV Garowe.